مسخوش مركز صارت إنه جيلين وحيات دربي حبضوه كسر عيان ما دام حبضي كسر جدوي دربي يقعد كروانة متك مسخوش وسيء جد بوايا واي ماشي أسانقله وحي سوى عيدت حيه dad baa isoo wacay telefonkaaga ha aan inta codka u xiray waxay ugu dhaheen waxa xabada wada waa dawladda ma nooshahay waa noolahay kulanti wanaagsan ku soo dhawaada ha noolaato aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi meel walba aad joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh barnaamijka maanta waxaan ku wareysanayaa Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ah nin sarkaal ah oo ka tirsan hay'adda mas'uuliyadda qaranka isla markaana wax badan ka og xaaladda siyaasadeed iyo amni ee waddanka Soomaaliya Cabdisalaan sababta aan maanta u wareysanayo waxay tahay in uu ka badbaaday shirqool la damacsanaa in lagu qaarajiyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee magaalada Muqdisho haddaba waxaan doonaynaa Cabdisalaan inuu warbixin waafi ah naga siiyo sida ay wax u dhaceen iyadoo ay jiraan jahwareer badan oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen oo dad badan oo Soomaaliyeed aysan macluumaad rasmi ah ka haynin wixii meeshaasi ka dhacay Cabdisalaan maadaama uu yahay nin wax ka yaqaan ciidanka lana socdo ciidanka Soomaaliya isla markaana goobjoog ahaa oo ka badbaaday arrintaasi ayay noo suura gashay in arrintaasi wax ka weydiino Cabdisalaan ugu horeyn waxaan jecelahay in wax ka weydiiyo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u baahnaan lahaa inay ogaadaan cid ka madax bannaan dawladda iyo dadkii la weeraray ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur xisbigiisii wada jir aqoonna u leh ciidanka nasiib wanaag waxaad ahayd qof goobjoog aha ilaahayna waa ka badbaadiyey laakiin siday wax u dhaceen maxaad sawir naga siin kartaa maalintaas ayaan la xuseen aad oo mahadsan tahay oo kaaga mahad celinaa fursadan waxaanan isleeyahay waa fursad waa runtii waa barnaamij u baahan in laga hadlo waxayna tahay dadka Soomaalida qof kasto ila kulma si uu u weydiiya markuu ila hadlayana waliba soo xodogaal iska dhigaya oo inuu de meeshii joogo amal u hadlaya dabcan wuxuu maqlay wax loo sheegay ayuu su'aal iga weydiiya muhiim ay u tahay ummadda Soomaaliya marka inay fahamto ogaatana waxa meeshan ka dhacay anigu waxaan ku jiray guriga baan ku jiray muu malaynaya inaan ahay target ama qof la raadsanaya anigu inaan ahay laakiin de waan la kulmay guriga waxaa deganaay sida la socoto xisbiga wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah murashax madaxweyne horena u soo ahay baa deganaa asagana marti u ah waxaa dhacda marka muddo gaaban anigu guriga waxaan soo galay marka xabadu dhacayaan muddo aan 20 daqiiqo hor baan guriga soo galay hotel Jasiiro aad ugu dhow yahay guriga markaan guriga soo galay waxba ciidan waxba dhaqaaqa ma jirin runtii dareenna ma qabin wiilasha la dili doono marka dambe meesha irid hore laga soo galaa dirin u taalay sida meelaha footage-da qaarkood ku aragteenba way iska ciyaarayeen oo dibnad iyo turub iyo waxba meeshii ku cashaynayeen waan salaamay gurigan soo galay markaan soo gudbay wax yar ka bacdi baan waxaan maqlay dad isqa qabsi laba qof dad qaylinaya oo wariyaa xaas amal noqon muran iyo waxaan maqladanay iyo kabaha dhawaaqooda buudka oo dad orda ama laba qof oo wax isku degan amal oo de buudka kabaha daaqadan ka soo fiirin marka hoosteedii ahayd dabaqa koobaad aan saaray hoosteedii meesha wuxuu ka dhacay markaan soo fiiriyay waxaan u jeeday ciidan baan arkay isla markiiba de second waxa dhanba waa wax aan isleeyahay 20 second iyo 30 second weyn ba xabada bilaabatay xabada markay bilaabatay ana ilaahay wuxuu iga dhigay inay askarta waardiyaha laftooda isqabsadeen ayaga dhexdooda ay maartay iskhilaafeen ayaga dhexdoodana ay maartay isxabadeynayaan xabadii marka daaqadii dib uga soo degay wax yar ka bacdiiba waxaan maqlay xabadii baa bilowdeen xabado badan baa bilowday waan dareemay xabado inay xabada isku dhacayaan xabad hal dhinac ka dhacayeen markaas waxa ugu soo way igala weynaatay askartii inay haystaan waxay ila noqotay dad dagaal meesha ka socdo waxaan maqlay marka nin dhahay ma hubaysnay yahay dilin iyo xabad oo ma hubaysnay yahay dilin lagu daboolay oo isla markiiba dhawaaqay oo meesha ka baxay markaas baa waxay i timid cabsi aad u badan waxaasna waxay leegtahay waqtigaas aan sheegayo waa 2 daqiiqo 3 daqiiqo weeyaan bilowga oo dhawaqan maqlay iyo marka aan maqlayo hay dilin ma hubaysnay hay dilin
oo waliba si qaylo ah 3 daqiiqo ama waay xabadii way qofka haydilin ma hubaysidii dhahayaad garatay marka in xabada lagu aamusiyo xabada lagu aamusiyo markaas waa markaan yaqiinsada marka in wuxuu ay ka weyn yihiin dad isqabsaday iyo xaaladani culusta isla markii marka waxaa bilowday xabada dhashiika ayaa daaqadii ka soo galay ilaahay amarkiis dhar waxaan qabay dharka jiifkaan qabay dharka jiifka sariirta waan ka soo istaagay maadaama waan ka soo fogaaday waxaan isku dayay inaan gashto dharkii labiska caadiga ah funaanad iyo sarwaalka jeaniska gashanaya marka baa xabada dhashiika iyo wax tiro badan baa daaqadii ka soo galay waxay ugu soo dhacay marka bulukeetigii iyo dhagaxaantii derbiga iyo muraayadihii maaragtay daaqada iyo wixii dhan baa ugu soo daatay xabadii marka waxay ku dhaceen derbi aniga iga dambeeyay ayay ku dhaceen in fact levelka hataa xabadu ay ku dhaceen aniga ila sanaa way ugu dhicin kareen laakiin ilaahay uga badbaadi dhulkaan ku dhaca marka anoo dhulka jiifaan marka sarwaalkayga gashtay waay intaasna xabadii way socotaa waxaan maqlayay marka xabado oo jabshaha camal oo dhacaya marka bumbooyin iyo jabsho dhulka markaad ku dhacday maxabadiya ku riday marka aniga marka waxaan iska dhaadhicin anigu istuuray laakiin haddaan dib u fikiray inaan miyiraan isku tuuro lahay ma xasuusto yani sida wuxuu degdeg u ahaaya marka waxaan leeyahay xabadihii baad la dhacday ama buskay wax marka arta istuurtay ma sheegin karo dhulkan ku dhacay waxay ahayd marka wax degdega dareenkii ugu jira wuxuu ahaa shabaab meesha soo galay xabadaha meesha soo galay waa u jeedaa inay yihiin xabada korna ka soo tooganayo oo ay laano daaqada kore waxa kaliya xabada ku la soo gaari kara cid meel fog ka soo tooganaysa ee qofku hoos jooga xabadka kuma soo gaari karo waay dharkii markaan gashtay xabadeedana markii la soo laabtay daaqadihii muraayad yar oo armaajo yar oo dharka la gashto oo daaqada ku aadaneed iyo derbigeedii ka soo dhex bixeen haddana muraayadii oo jajaban iyo armaajadii oo jajabkeedii alwaaxdeedii wixii haddana sariirta iyo aniga iyo derbiga soo daatay markaas ayaan waxaan galay musqusha marka sababtan u gelayna waxay ahayd derbiga xabaduhu ka soo dhacayaan maadaama xabadii ka soo gudbay derbiga kale iga celi karo inay midka musqusha u sii gudbo waayaan waay meeshaasaan galay waxa isoo wacaya haye dad baa isoo wacay telefonkaagi ha ani telefoon codka u xiray waxay igu dhaheen waxa xabada wada waa dawladda ma nooshahay waa noolahay okay markaas waxaan iska yaqiinsaday in dawladdu weerar ku soo qaaday ma fahmi karo runtii laakiin dawladdu soo weerartay meesha ninka meesha ugu weynaa la rabo dabcan haddaan meeshaas kugu hakiyo marka ayaa waay maalin dhaweedaan waxaan fiirsaday bal waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo dictator macnaha uu leeyahay meelahu isaga midka yahay ama qaraabo ha noqdeen ama laba qaarad ha ku kala noolaadeen laakiin meel isaga mid yihiin jirto waxay isaga mid yihiin naxariis darrada iyo dilka filawaayga in la fila waayo waxa uu qofkaan kugu samaynayo in adoon malaysanayn inuu waxa ugu xumay bini aadan lagu sameeyo kugu sameeyo maalin dhaweed haddaan qaldaneen barnaamij aad duubtay baa jira oo la yiraahdo daahir marajibri aad ka duubtay wuxuu ka hadlayaan malayna in ila Cabdiraxmaan Macallin Bashiir waqtigiis dalo ka hadlay markuu hadalkaas ka hadlayay aniga waan sawiran karay qofka uu ku hadlayo sida uu eegyahay laakiin haddana waxa maskaxdayda dib ugu noqotay xanuunkii aan arkay habeenkaas ee askarigii qaranka dawladda Soomaaliyeed inuu adigu ku dilo madaxii ugu sarreeyay wadankana inuu go'aan ka gaaro in dad muwaadiniina oo meel jooga la dilo xanuunka aan dareemay markaan fiirsanay dhibaatadii ku dhacday Cabdiraxmaan Macallin Bashiir waxay ugu soo nooleysay waxa la wixii jirkeyga damqasho iyo doog ku aasnay ay dib igu soo baxay waay marka arxan darrada iyo cadaawadda oo ay ku dhaqmeen ciidankaas habeenkaas xasuusata marka waxaan xasuustay waxa ay la egta dabcan ninkaas xabad ma uusan dareemaynin laakiin waxa ay la eg tahay qarankaad adigu u labisneed ee askari u ahayd inuu naasaha ka goos ee caloosha ka fakto ee murqaha lugaha ku gooyo adigoo cid ka celinay jiray nolosha kugu cadaabo cidaad uga dacwoonaysan jiray waay haddana uu yahay cidaad naftaada ku aamini lahayd waay habeenka marka taada marka waxay iska yeelanayaan
waxaad maqlaysay qori ma watay hay dilin iyo qof xabad lagu aamusiyay iyo maxaad aragtay oo kale marka meesha ka bacdi marka waxa dhacay xabadii way socotay dadkii way soo wacayeen waan u sheegay waxa dhacay inay shabaab ahayn aan fahmay maadaama la igu yiri ciidanka dawladda soo weeraray waxaan maqlay baabuur albaabka hoganjeelkay furan dhashiikay soo galiyeen dhashiika kalena wuxuu yaalay darbiga guriga banaankiisa oo midka daaqada naga soo xabadeynay midna gurigay soo galiyeen waxay xabadeynayeen guri naga soo horjeedo nagu dhagan iyo daaqadaha hoose iyo wax waxay arkeen ay xabadeynayeen guriga ayaa deganaa ka soo horjeeda guriga waxa deganaa nin markaas waxa deganaa nin nabad sugida taliya nabad sugida deganaa oo dawladda kamid ah deganaa oo la yiraahdo malayna hadana qaldaneen Sakariya Ismaaciil Xirsi ma la yiraahdaa ninka shabaab ka soo goosan jiray oo saraakiil shabaabka sarsaraha nabad sugida sababka ahay oo dawladdu ku soo beeray ninkaas baa deganaa waasna habeenka in la dilaa oo maya isagu de waxba maartay guriga nagu dhagan oo deganay soo guriga wax kama deganay marka waxay sababtay wax badan waxay kolba waardiyo ayaa naga dhaxeeyo darbiga labada guri dhexdooda ku yaal marka kolba waardiyaasi waxay ka cabsanayeen askar noo saaran tahay sidaas ay u xabadeynayeen gurigan ay wadan kama haysan lahayn waay xabadii markay sidaa u dhaceen oo waxaad maqlaysaa silis qashirka ama fuuqaqa ka dhaca risaasta oo dhulka ku daadanaya dhawaaqooda lafteeda wuxuu ka xanuun badan yahay xabadaha dhacay waxaad dareemaysaa siliska furmaya ee xabadaha laga qufay waxaad dareemaysaa daba miishaar baa dhacay jabshaa dhacay xabado akay baa dhacay dhashiikayaal baa dhacay dee hal mar bay isqabsatay haddaana qaldaneen 25 daqiiqay socota xabadaas marka waxaasoo dhan waxay ku socdaan idinka aniga nagu socda idinka dhankiina wax jawaab ma jiraan de wixii dhanba waxa la afjaray 3 daqiiqo waxaa dhacda marka waxaan maqlayay ashahaatin marka dad shahaadanay yar leeyahay Mukhtaar Gambe oo dadkii markaas guriga soo galay oo ta askarta banaanka taagan arkay isku day inuu yiraahdo waryaada banaanka askara taagan maxay yihiin fadhiga markuu soo gaaro nimankii u yimid nin dabcan meel uu socdo oo guriga ag maray bay xabadu qabsatay marka asaga hadalkiisan maqlay Mukhtaar iyo dhowr qofood oo kale oo qaylinayo shahaadanayaan maqlay waxaan maqlay Cabdiraxmaan Shukuur oo wacaya Cabdinaasir Geelle oo hadda ah wasiirka qorsheynta Galmudug oo asaga laftiisa qol ku jiray ayuu u wacay war Cabdinaasir oo manooshahay Cabdinaasir oo qolku garaacay Cabdinaasir marka furo uu sameeyay ana markaas waxa ugu jirta Cabdinaasir oo dhintay sababtoo Cabdinaasir marka ugu qaylinayo waxay ahayd xabadaha qolka Cabdinaasir ka soo gudbay albaabkiisa ka soo dhaxbaxay baa guriga barxadda dhexe la isaga socdo bay ku soo dhacayeen waana kuwa dhaawacay Cabdiraxmaan Shukuur iyo kan Mukhtaar Gambe laftiisa oo dhaawacay xabadaha dhaawacay guriga Cabdinaasir qolka uu deganay ka soo dhaxbaxay sidaas loo dareemay inuu Cabdinaasir uu soo ku badbaaday qolkii waxay ka bacdi adiga waxaan maqlay xabadii baa istaagtay daqiiqada yar banaanka ayaa qof wuxuu ka yiri albaabka hoose guriga gacmaha taaga ee soo bax gacmaha taaga soo bax waan soo baxaynaa hay dhahan dadkii hadda qof oo amaaqa waan in tooganaya soo bax hadii kale walaal baasan ku furayaa qaylo yani yahandadaad iyo waa la dili doonaa waxba ay dhacay waan sugay anu marka waxaan haystay bastoolad iyo 3 qismadood mid igu jirtay iyo 2 kale oo mid 15 xabado qaato waxaan ku talagalay marka hadii lagu soo galo maadaama la isdilayo intaad ku dagaalamto way xeelaysan meeshan ka dagaalami lahay waxaan sameyn lahay waxa soo dhanna waxa iga sii weynaay waxaan isu jeedayay runtii picture waxaan maskaxda ku haystay anigoo la idilay laano dad badan oo la dilaan soo kor istaag anigoo la idilay dhiiga iga baxay meesha uu gaari lahay meeshan sidaan u dhacay dadkii soo kor istaagay anoo meeyay siday ii kor sawirkaas oo dhan oo imo oo ah sawirada hore u arki jirtay sawirada dad maadaama dad hore loo laayay aad arkaysaa anigoo meeshii jaala oo dhiigii iga baxay oo indhahayguna xiran yihiin kala ma aqaan maskaxdaadu haddaad xaaladaas la korto kun sawir ku soo dhacay kun sawir hadda dadkii kor imaanayay siday ahaayeen iga sheekeynayeen runtii waan dib aan u xasuusanay waan maskaxdan ku hayay marka nin nolol ku talagalay ma tihin nolol ma jirin nolol ma jirin ragga qaar ka taa fursad waxay heleen faamiladoodii wacaan ee caafiya dhahan laakiin aniga waxaan iska ilaalinay inaan faamilkayga ogeysiiyo xaaladdan ku jiro waxaa dhacda marka way baxeen waxaan ku fekeray haddii la toogtane xabaddood maqli doontaa markaas dee waa baashu waa iska cadda hadday badbaadaanne markaas nolol baa jirta ilaahay markiis caay iyo qaylo iyo waxbaan maqlay ma xasheegi kara hadalku wuxuu ahay
baabuur qab daaqada la xirayo baabura dhaqaajiyay dil ma maqal marka rajo waxa soo gashay marka in la noolaan karo waxaan sameeyay bastooladaydii baan sariir hoosteeda dhigay qolka nalku u dansanay waxaan maqlay marka qoryaha qoriga kabaha dadka la soo koraya dabaqa buudka oo soo orday kub qol iga soo horjeeyay haraanti ku dhifteen kayga haraanti ku dhifteen mid ugu dhagan haraanti ku dhifteen ayagoo qaylinaya fur albaabka waxaan ku yiri marka waan furayaa sababta marka bastoolada meesha u galiyay waxay ahayd inaan sabab la iga dhigin bastoolada uu haystay oo la ii dilay maadaama aan yaqiinsaday waxay inay dawladda yihiin nimankii inay baxeen oo la joogana aan nolol baan rajo ka qaba marka bastoolada meel aan ku qariyay waxaan ku dhahay waan qolka albaabka waan furayaa ee ii dilinina ma hubaysnay way caayeen qamrabad meesha ku caawaysaa dhilooyin bad meesha ku waxaynaysaa aad iyo caayeen fur albaabka waa furayaan ku dhahay albaabkii aan furay nalka shidnalkii baan shiday 5 cunug iyo 6 waxay caayeen ma aqaan oo wajiga u duuban yahay oo mid kasta qoriga ammaan ku furay baa qoriga ugu hayay yani haddii wax yar oo kaneeca wajigiisa ku dagaan oo naxo baas uu furay gacmaan kor u taagay soo baxay dheer aad iyo caynayay tuugiyo qaa'inka ahoo qamrada cabayo naagaha meesha ku waxaynayo kullu wajida wax xir marka wajida gara karta lama oqaan karo waa soo degay kan soo degay jaranjartaan ku soo lugeeyay baan waxaan u jeedi karaa marka barxadda hore ee guriga albaabka laga soo galo baan waxaan ka aqoonsaday niman badan oo aqaano oo albaabka soo fiirinaya xaggeena oo nin aan aqaano Yaasiin Ganay la yiraahdo oo taliye ahay oo nabad sugida ahay baan ka aqoonsaday Yaasiin marka wuxuu ugu yiri war taliye oo ugu yiri wariya ka daayay taliye Cabdisalaam waa ay ka dhaaf xabad qorag ciyaalkan de waa malaha oo qolo marka shabaab laga keenay laba kale yaqaan waxba kala ma yaqaanin waay xabadii iga joojiyeen laba xabay ugu hartay ku kala qolkii u laabtay ciidan badan oo aqaana marka banaanka taagnaa guriga barxadiisa hore ciidan badan oo aqaano waan afku u duubnayna taagnay way salaameen wartay waxba ka maqan ugu yiri Yaasiin si fiican oo ila hadlay waxaan ku yiri niyo bastooladeydii baa iga maqan wariya bastooladiisi kaano ku dhax anu waxaan umaleeyay bastoolada ku soo qariyay markiiba ilaa kuwa ila socdaa sitaba mid qaanad qasnad ka soo bixiyay sigisaan iyo mid bastoolada dhabarka ka soo baxshay iyo ayaga ila bahashan ku cabaysan waxay siiyeen bastooladeedii waxay baan xirtay waxaan ku oriniyo alaaba markii qaadanayeen ma arkin bade sakanadiiba malaha hal mar mekanadiiba wateen bal waxaan ku ori qolka mitii karam ka soo qaadan karaa alaab haa ugu dhaatay tii karta qolkan tii qolkii oo jabano dhalooyinka iyo wax baasaboorkayga ma soo qaatay jeebka soo gashtay waan soo degay bastooladiidan wataa markaas waxba igama way soo wadeen marka waan soo baxay waxaan kor imid marka wiilashii la dilay mobilka tooshkiisa ku shiday waxay isu yaaleen 1 iyo 2 iyo 3 wiil isgarabtiin waxay isu jiraan 2 mitir iyo 3 mitir waay nin kasto yani meesha carro maaga u jeedaa soo sii jeedo dhintay xabada u dhacay waan socday marka ayaga wiilashii ila socdaan mid kale aan fiirshay yarka ha idilin la marka dhahay maqlaysid ha idilin dhahay ma hubaysni lugtaan oo ka dhaawacmay gadaalanka arki doonaa lugtaan oo dhama baabaaday baabuur gadaashiisa ku cararo marka waxay uga daba tagay marka baabuurka gadaashiisa madaxay jeexeen xabada baasi madax uga furay tooshan ku shiday waan arkay bis waa soo bax marka waxaanan ogeyn marka laba meeydoo kale yar darawal ahaayo hurdo ku soo naxay oo jaranjarta kalba waardiyaha ta fuulay ka bood maaga banaanka dashiika banaanka yiila xabad hawada ku cuna marka isagoo yaroo de calala oo jajaban oo barxad oo dhulka xagga jidcadka guriga dashiika ku furay soo yaroo macawustiisa qaba cada iyo meesh ku baaba'aysan oo ku soo dhaca kaas subaxii baa la arki doonaa habeenkii waa kii shanaad marka waa kii afraad ka shanaad wuxuu saaraa korbaardiye kale markuu arkay saaxiibadiisoo la xabadaynayo ayuu xabad soo riday meesha hoostiisa marka waxaa taagnaay inay ku talagal ahayd iyo inay iska taagnaayeen maqaan kuwa taagnaa hoosay uga fureen marka kolbaardiyo marka wuxuu iska ahaay alwaax iyo kabad caadi iska ahaay xabadii meeshii ku dhintay dhiigii meesha ka soo daatay marka asna meesha ku jira oo dhintay kaas subaxii dambe ay qaadi doonaa taameedkiisa ma laba qoray oo qoray nin waardiya meesha uga tagay markii hore iyo kiisi subaxii dambe ay qaadeen shantaas meesha ku dhimatay waxaad isagyaalaad aragtay midka banaanka lagu dilo darawalka ahay iyo kan kolbaardiya ku dhintay shantaas dhimatay markaan askartii arkay waana shantii guriga saddex waardiye ah 4 waardiye ahayd iyo yar darawal ay ahaayeen dhalinyaro kale oo marka ayagana waardiye ahaayoon kolba waardiye hoostiisa jiifay oo aysan dilinaa jira marka oo ilaahay ka badbaadiyay ma is arag miya
way arkeen laakiin waxay arkeen markii xabaduhu sheekadu markay fashilantay kabacdi oo in Cabdishakuur ay wateen oo de maartay wixii si loogu talagalay bay arkeen ilaahayna wuu ku badbaadiyay adi marka Cabdiraxmaan la qabanayo iyo ma ogeyn marka waxa soo dhan qolka ku jira laakiin waan maqlaya in la watay oo de baabuur la baxay iyo waxa soo dhan waan dareemay markaan soo degay waxay ugu dheen marka Cabdiraxmaan waa la waday ugu dheen mid askari ah soo dhaweey ugu taliye Cabdiraxmaan waa la waday waana nooliya daawacana waxaan ka soo dhaafay daawacana waraan daawacmayna waan maqlay oo qolka dhexdiisa qof kala ahay markii qof uu mataqaan qof oo amaqa banaanka soo baxay banaanka guriga jaalka soo baxay waxaan u mid marka dhowr qofood oo yar la yiraahdo Maxamed Cadow oo markaas agaasima ka ahay wasaaradda oo asaguna dadkii jidka marayo ah runtii oo maadaama uu xaafadda marmar imaan jiray oo yiraahdo war waxaan maxay yihiin oo askar maanta maxaa qalad oo jira oo u soo gala guriga yarkaan oo la socdo Cabdifataax Geesay oo ah xildhibaan oo federaalka ah oo koonfur galbeed ka soo galay yarkaas Said Ali kamila Said Ali Macalin Maxamuud oo ah ninka oo maartay ku xigeenka wadajir Said Ali marka Mukhtaar way baxeen Mukhtaar dhaawac ahay askarta mid kamid ah Mukhtaar yaqiinay wuxuu ku yiri war hebel dhaawac aan markaas Said Ali wuxuu marinayay wiil yaro maadaama nin jab yar yahay kaasi gulay ninka dhaqtar geey Said Ali dadka la raadsanayo ku jira sidaas oo Said Ali maysan aqoon waxaan marka ilaa 10 qofood oo askarta meesha ku baaqiga ahay Cabdinaasir Geelaas yarkaas Cadow iyo Cabdifataax oo aad u bus iyo rafaad badan oo derbi iskool lagu dhaganay madaxa loo saaray oo fadhiya oo qoryo ku hayaan oo in la tooga raba amal ay saf ugu jiraan baan u umid waxaan ku yiri marka ninkii ciidanka haysta ninkaad rabteen waad wadateen intaad rabteen waad disheen dadkan maxaad ku haysataa sidii baa lagu soo fasaxay marka waxaad ku leedahay ninkii Yuusuf waxaan ku leeyahay Yaasiin Ganay Yaasiin waxaan ku dhahay ninkaad warteen rabteen waad wadateen intaad rabteen waad disheen maxaad ku haysataan dadkan bas nimankii waa soo hadleen way iska fasaxeen runtii wax dhibo kale ma aysan geysan psychological yaad ka aqoonsato kale marka ciidankaas yaa hogaaminaya amarka yaa laha ciidanka weerarka soo qaaday awaamirta iyo amarka waxa iska la Saadaq Joon ninka taliyaha markii dambe laga dhigay taliyaha gobolka Banaadir ee booliska Saadaq Joon way saad ku garatay ku ogaateen waa isaga marka laha waxaan sidaan hadda kor idaacadaha ka sheegay Saadaq wuxuu soo wacay yar guriga joogay oo Cabdiraxmaan gacan yar u ahaa xogeyntiisa ahay waardiyihiisa ahay yarkaas telefoonkiisa wuxuu ku helay dhowr maalmood ka hor ayay ahayd inuu ID card u sameeyo maadaama oo yarkaan uu caqabad kala kulmo birtaan la siimarayo bay Cabdiraxmaan iyo Saadaq way isku wici jireen oo de alien bahal isku ma ahayn wuxuu ku yiri Cabdiraxmaan wuxuu ku yiri Saadaq igu sameey ID wiilkan waxa ku adkaaday jidkaan qaab marka wuxuu igu sameey aqoonsiyo marka wiilka iyo Saadaq way wada hadli jireen Saadaq markii wiilku soo wacay wuxuu ku yiri madaxweynahan warqad u wadaa markaan jasiira soo gaaro soo wacay albaabka wiilku maadaama labadoodu is yaqaaneen awal madaxweynuhu asaga baray dib kuma ahayn waayo ku dhahay ku soo dhaw ku yiri jasiira hadda waan soo dhaafay warqadaada kuugu dhiibaa kaale iga qab baabuurka guuxiisa oo markii ku ii sheegay wuxuu albaabka markuu baabuurku dhaafay baan albaabka furay si aan warqada uga soo qaado albaabka markuu furay baa askarti gadaal ka saareed oo Farxaan Qaroole waay ninka dadka laayay oo askarta dadka laynaysa xabadaha ku dishay Farxaan Qaroole ninka la yiraahdo taliyaha Haram Casan baa ahay way Farxaan iyo wixii gadaal la saaray marka hal mar ay soo degeen qoray baadkiis iyo boot iyo haraanti hal mar wiilka ku wada dhiftay wiilka meesha ku dhacay qorshaha marka laga laa wiilka waa inuu albaabka furay Saadaq Joon oo meel fog joogaan hagaaya Saadaq baabuurku ku jiray okay Saadaq baabuurku jiray ana cidoo ku soo arkay number 4 iyo cidoo ku soo arkay markii dambe uu ku arkay meesha baa ii sheegayaan wiilku markii uu dhacay baabuurku waa kala jiiray askartan guriga galaysa waa u furay wiilku saas ku badbaadaba asagoo intii wax dhacayeen oo dhan meesha waa suuxsana banaanka u yaal waxa dhacda marka daqiiqada ka bacdiiba waxay soo galeen guriga way meeshii qabsadeen baabuur qooqana ah oo dibashireeya soo galeen guriga oo dabcan dad VIP lagu waday oo guriga inay baaraan aan askar ahayn waan u jeedaa hotel Jasiira joogaa waan u jeedaa in fact geerishkan joogo waan u jeedaa wax guriga dhacay waxa dhacday marka
markaas adiga bannaanka aad taagantahay oo aad arkaysaan ninkan aad ku sheegtay Yaasiin Ganey Saadiq Joor maad arag Saadiq Joor maad laakiin aniga sababta albaabka yaa furay iyo wixii baan dib u baaray subaxii baan ogaanayaa wiilkii baa habeenkii ugu yiri wataliye Saadiqan albaabka ka furay Saadiqa baabuurkiisa oo ahay wuxuu ugu yiri kaal warqadan iga qabo warqadii baan ka soo qaaday sidaas aan nimankii marka shirqool oo ahaa waay Saadiq marka wuu laabtay wuxuu istaagay hotel Jasiira meesha laga soo galo laamiga caadiga buu istaagay inta xabadu dhacaysa meesha soo taagnaa waay xogta aan ka helay askarta ninkan kale marka farxaan la leeyahay inuu dadka laayay farxaan inuu marka dadka laayay oo ninka askarta watay in fact dadka ogaay in dadkan la laynayo farxaan iyo intii la socoto 4-5 kale la socotay iyo Saadiq Joor ay ahaayeen waxaan aaminsanahay anigu oo waliba si weyn u aaminsanahay Xasan Cali Khayre inuu qaybta ugu weyn ku lahaay oo hadda mucaarad ka mid ah qaybta ugu weyn ee dilkan Xasan Cali Khayre number 1 oo ka ah saad ku leedahay markaa waxaan ku leeyahay xogta aan ka helayo dawladda dhexdeeda reaction-ka markii wax dhaceen oo baxshay Xasan Cali Khayre iyo sida wax u dhacayeen intuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur xiraay iyo xogta aan ka helayo xogta hay'addan ku dhex jira Xasan Cali Khayre Fahad Yaasiin Farmaajo saddexdaas ayay aaba tiraada wixii meeshaas ka dhacay marka wuxuu qorsho weyn wuxuu ahaa nimankaas uma qorayn Cabdiraxmaan uu noolaanay in fact waxa uu qoray warqadii yani xaqiiqan waxa uu qoray warqadii tacsida oo loogu tacsiyay lahay Cabdiraxmaan wixii ku dhacay dagaal baa meesha ka dhacay Cabdiraxmaan waa la soo xiri rabay ciidankiisa baa xabad furay 25 daqiiqana xabaddu waxay u socotay waxay ahayd in qof kasto xamar jooga oo marqaati ka noqdo isku dhac faraha looga gubtay oo lagu baaba'ay inuu meesha ka dhaco marqaati uga dhigay meydkii markaa waxaan ognahay in dadkii meydkoodii la waayay oo dawladdu ay qaadatay adigu markaa meydkii xagee ku dambeeyay markaad meesha joogtay waxyaabaha jiriimada ah ee bini'aadanimada ka baxsan oo aad isleedahay dictator aniga isleeyahay madaxweynihii hore Farmaajo iyo xaqiijinaya iyo Fahad Yaasiin waxa iyo xaqiijinaya dadka nooca dad ay yihiin hadday Soomaaliya ku soo laabtaan xawaaqibka Soomaaliya sugaya hadday baxaan ay tahay in sharci la soo hor istaajiyo waxay tahay wiilashii way laayeen way qaadeen habeenkii waxa dhan waa u jeednaa 1 o'clock meelahaas ay qaadeen waxay geeyeen CID-da faamiladooda ka war heleen subaxii ku soo yaaceen way ka celiyeen waxay dhaheen meydka waan qaadaynaa istal Madiina geelinaa waa la dhaqayaa markii la dhaqo meeshaas aan ku tusaynaa meydka ka bacdiina waa la duugayaa haddaad idinku duuganaysaan waa iyadana waa ka heshiinayna yani faamiladooda dhan baa isoo wacayay oo ilahay meesha tagna waana la ka soo celiyay waxa dhacda marka shakhsi Soomaalidu waa wada qaraabo way wada siqaaniin loo ogolaaday oo la tusay meydkii wiilashooda laakiin faamiladii waxa loo diray istal Madiina oo leeyahay meydka waa lagu dhaqi doonaa xaggaas aan la keenayaa xagga tag markii faamiladii wada baxeen oo xagga tageen ayaa meydkii la qaaday 5 saac iyo barmeeyo 5 saac oo subaxnimo meelahaas ay qaadeen meel cid taqaana aan la arjiga tageeyeen ku soo duubay waxa kamid ahay marka nin odaya oo aan isleeyahay aad iyo aad ayuu runtii u dareemay xanuun oo wiilkiisii la dilay ninkan askari oo waay wiilkiisa meesha lagu dilay wuxuu maadaama oo ID askareed haysto waa uu baxay wuxuu tagay wuu raad xogow helay xageen helna waa uu baxay waa wiilkiis wax maqan waay وانا سرقال اسق ميليتري ويلش لا لايو دنا كل ميليتري اهايه وحو هلي حقته ah in wiilish meesha loo qaado uu ka daba tagay asagii baa afkiisa iga hadlay uu ka daba tagay wuxuu yiri wiilkayga inaan duugtaan rabaa baabuurkaas ambalaaskay saaran yihiin waxay ku dhahan taqaana askarti kuma day karno waa u jeednaa yani waa soo dhaafay difaaciyadii oo celintii waxay soo dhaafay kuma day karno wuxuu ku dhahay wiilkayga aan duugto aabaan ahay askari baan ahay ID-gayga waa kan aan duugto wiilkayga ninka taliyaha ee meesha xukumaan ku sheegaynaa ninkii bay u tageen ninkii baa u yimid wuxuu ku yiri ma taqaana waa 5-6 baan kaaga dhigay haddii irida ka bixi 5 weeyaan waxa meesha yaal mujeeda wallahi 6 baan kaaga dhigay hadduu hadalka badi 6 uga dhiga oo dhaqaaq taliyaasna waa la yaqaana waxa loo qoon waa kuma kaas magaciisa ma hayo laakiin ninkii uu ku yiri yaa haya wuu ma ii sheegay aanan xasuus waaye
وانا نبي سوقي كم مركا بوليس waa ninka saas dhahay Soomaali kale waay wixii dhacay marka 1978 wixii dhacay oo ku dhacay Cabdiraxmaan Macalin Bashiir iyo 2017 December 2017 wixii dhacay aad isu leeyahay ana aaminsan farmaajo bini aadanka hadaan maqato wax kastoo dhaco meel ka weynaado farmaajo maanta meel yar nabar yar oo Soomaaliya ku yaal wayaan laakiin wuxuu u socdaa inuu kansar noqdo waliba kansarka noocan la daaweyn inuu noqdo oo loo dhinto Soomaaliya inay u dhimato laano nin asagoo oo waxa la doortay February la doorsamay 17 December 17 baan joognaa oo 17 sanad muddo ka yar ninka dhaqankiisu noocaas noqdo wixii ka dambeeyana aan aragnay haday qalbi dhagax noqoto haday noqoto madaxweynayaashii la xabadeynayo haday noqoto waxa askartii Soomaaliyeed ee 10 ku gaaraysay Eritrea ku sadaqaysay iyo ka gadaya ma qaane aan nolol geeri maanta meel lagu sheegay la arag qofka nuxurkiisa iyo dadnimadiisu noocaas tahay waxaan isleeyahay Soomaaliya waa musiibo u soo socota waliba joogta waxayna xasuusinaysaa waxa dhaqankiisu ahay cid uu ku daysanaya asiyad waay xagee ku dambeeyeen wiilashii marka aaskoodii see loo aas wiilashii kabahoodii sawirradii waxaan hayaa markii la aasay waxay sameeyeen iyagoo kabo sigisaantu kaba ma dhihi karo laakiin sigisaantii qabeen uniformkoodii iyo qabeen fanaanadii iyo qabeen dharkii dhiigoodii sidii sawirradoodii baan hayaa hadda qaada afka ugu jira qaarkood iyagoo qaadka afka ugu jiro bayta maraacad ku duuba mara mahal aroojiyeer loo konfarac amal ku duubeen geliyeen jiyeer ku xiray godka markii la dhigay sawirradii laga soo qaadanaya iyadoo marada cadeed jiyeerkii laga furay wax yar oo qaad afka ugu jiro oo la duubay marka ma bidba qabriya loo qaday meel goday geliyeen goday isla wada geliyeen hal goday isla wada geliyeen xogta aan ka helay nimankii duugay baan ka helay marka fiiri war hadaad askarta markii hore qalad ku lahaysay kasoo qababa waxaa jira Saadaq John iyo Farxaan Qaroole iyo dad yar oo bahalaha laayay Soomaa markii la soo meedkii meel la soo dhigay waxaad u quuri weysay waalidiintii dhaqankii Soomaalida islaamnimadii waxaad quuri weysay inay duugtaan in la dhaqo in la sharfo meedku sharaf u leeyahay way qaadka afka ugu jira dadka bixisada awoodi weysay dadnimada marka laga filanayo damac wadani baan ahayo leeyahay war haade hadaad askarigii Soomaaliga ahay meedka sida yeelayso waa kan wadaniyaata ya rab nimankan aad sheegayso ee falka fuliyay la leeyahay Tiri Saadaq John iyo Farxaan Qaroole maxaa laga yaqaan dadkan dadnimadooda maxay Saadaq John wuxuu ahaa jiray Mooriyaan caana oo la yaqaano dilal badan geystay wuxuu caan ku ahay waqtigaana xasuusane internetku ku jiraabay haddaan ogaala su'aashaas inay weydiinayaan waa maraadin lahaay arda iskool ka timid oo caasi saaran oo hal mar baas ku xarqaamay isagoo dabcan ujeedadaas ka tamaan dadka loo dili rabo baawarkaasi qaldan meesha u soo galay 8 miya ma qamsan 12 ayaa dhimatay waa arday ah waa waqtigaas 98 miya ma qan hay 9 iyo adiga 9 iyo 8 meelaha sano malay laakiin internetka u jirta caan weeyaan inuu dilay wax qarsoon ma marka nin dadka laayo ah marka dadka laayo la Kristo waxa jiro ilaa 3-4 qoys oo ka bacdi marka waxaan geystay aniga si maadaama aan asagu dhibana u ahay wuxuu sameeyay ila soo xiriirno ii sheegay inuu dadkooda asaga lacag la siiyo dilay marka wuxuu ahaa dilay la Kristo oo Mooriyana ka bacdina sidaas ayaa qoyskiisu ugu la carareen Yurub markuu askar dad laayay ardadan askarta ardadan oo laayay kuwa waxa jiraan dhaawaca oo ilaa hadda sariira saaran oo la heli karo waqtigan la heli karo hadda oo paralyze noqday si lagu ogaado markaas inuu ardada xasaas ku furay tay wixii waaba laga xaalada wax qarsoon ma ahayn dadkii wuu laayay waa lagu soo baxay wixii waa laga xaalay sababta u baxa wadanka looga saaray asaas ahayd waay darajada generalnimo yaa siiyay darajada generalnimada waxaa siiyay nimanka hadda wadanka jooga madaxweyne xasan sheekh baa u soo bilaabay nin firfircoon oo aad loo jeclaayo wax qabadkiisa
nin askarinimadiisa iyo geesinimadii dhiiraantiisa la jeclaayba u ahay sidaasaana lagu siiyey darajada darajooyinka ka bacdiina dawladdaana ku amaal marisay maadaama uu dadka laynayo wuxuu ku amaal marisay geesinimada iyo arxan darrada waay sidaasuna mudnaanta ku yeeshay ma jirtaa maanta wuxuu haystaa malaayiin dollar waay wuxuu xamar intaasoo guryo ka gatay ka dhistay Djibouti guryo ka dhistay Turki guryo ka dhistay hani waxaasoo dhan wuxuu ku waa askari yar oo madaxto ciidanka gobolka Banaadir oo madax ka yahay dhaqaalahaas wuxuu ku sameeyay waxa waaye dacmiga laga siiyo dadka uu soo dilay sida looga gato iga dadka waay ma jirtaa marka inuu yahay nin haysto dhalashada Ingiriiska oo haysta yes waa run dhalashada Djibouti aan haysta Soomaaliya buu haysta xogta aan hayo baaritaan weyn baa lagu wadaa يوم من الأيام من بنانك waxaan arkay iyadoo ilaa qaramada midoobe la gaarsiiyay oo arinta dawladdu ay ka difaacdo lacag badan ay ku bixisay aad iyo aad haye arintiisa waa la baaray baarisa ku socoto dawladdan farmaajane wax badan ay dul dhigtay laana waxay ogtahay hadii ninkan la qabtay maxkamad la geeyo ama cadaalad la horgeeyo kuwa kale ku xiga uma dagaalami doonaan biri cadaalad oo ka cabsanaya marka nin kasta waxay ku dhiiri gelinaysaa waan ku garab taaganahay waana kula dhimanaynaa laakiin uma malaynayo inay macno weyn ku fadhiso waay ninkan aad leedahay Farxaan Qaroole markaa isna maxaan laga yaqaanaa Farxaan Qaroole wuxuu iska ahay wiil dhalinyarada xamar iska ahay sida xogta ku hayo shabaabkii uu ku biiray dagaalkii Itoobiya ka bacdina shabaab uu ahay ka bacdina burcad badeed uu noqday ka bacdina shabaab oo dana galay ka bacdina dib u soo laabtay wuxuu soo dhiibay dawladda hay'adda nabad sugidda ka bacdina nin wax taraho aad loo isticmaalay oo la dagaalanka shabaab runtii wax weyn ka qabtay oo ahay askari dhiiran geesiya laakiin aan wuxuu aabayeela sharcina ana qoraygu la mid yahay bombada dil rido waa dhacaya hadan la ridina waa aamusaya bini'aadan sax ma waay waa mashiin marka wuxuu isticmaal u leeyahay dad qof aan dawladnimo iyo sharci lahayn oo isticmaal u leeyahay marka dadkan in la abaabulo oo ragga noocaana la isku keeno see looga shaqeeyay see loo soo xulay dadka noocaana arxan darrada samayn kara Soomaaliya waxay tiraa geesi isma qariyo mise horor isma qariyo ama tuug isma qariyo qofku wuxuu yahay horaa laga ogaanaya marka de qof kasta waa la yaqaanaa Saadaq John inuu taariikh buu leeyahay dilaayo ahaa jiray waa la yaqaanaa wiilka yarkaana de nin shaqeynayo wax badan lagu la dagaalamayo al-shabaab oo ahaa marka horaa laga yaqaanaa dadka ay yihiin iyo nooc ay yihiin tajribadii iyo testigii koobaad laga sameeyana waxay noqotay inay yihiin dad aan damqanayn damiir lahayn oo bini'aadan ahayn Cabdiraxmaan Abshuur wuxuu sheegay in qorshuhu ahaa in la dilo marka la dilo ka bacdina raggii falka geystay la laayo oo maxkamad la saaro sidii ka dhacday Sacuudi Carabiga dilkii lagu eedeeyay in Sacuudi Carabiga ka dambeysay Qashooq dadkan waxay ahayd dawladdan ma ahan dawlad xeer adduunna qabto xishoota xilna taqaana sida caadiga markii waxaan oo kala la galo dadkaas waa in la asturo laakiin sida ii muuqata anigu waxaan isleeyahay farmaajo ma dareensanaba inuu qalad galay inuu maxkamad saaray inuu dambi geeyana waxna laano koban dambiya ka bacdi la galay hadda ma dhaxas madaxweynayaasha la duqeeyay la xabadeeyo la diliyo askartoodii la laayay oo ayigi la dili raba Soomaa wax dambi lagu qaaday miyaad aragtay ma lagu ma qaaday marka nimanka waa la isticmaalay waana la isticmaali doonaa hadda lafteeda ma dhaxdaas waxa jirtay xalay sariinta meel yiraaho dadka dhaqan cilinta lagu xareeyay oo muddo dheerna ay ku xareysnaayeen oo ay lafteedu ku cadiban yihiin baa waxa laga baxshay dad khubna waa la siiyay uniformna waa la siiyay nima taliye looga dhigay baasaboor diblomaadaha la siiyay waxaana la yiri hadii wax ugu dhacaan hadii lacag wax dhacaan wadanka waad ka baxaysaa wax kastana diyaar ku yihiin meel kasta waxa intaas loo xaqiijinaa inuu aamino hadii loo baahdo inuu wadanka bixi karo oo san aaba yeelin aan qofka doos leeyahay waa lagu qabanaa maxkamada lagu saaraya wadanka ma bixi doontid meel aad ma taqaanid waxa uu xeerin doono haddii aaminsan yahay wax kasta uu geesto in hawada loola dafi doono oo meel kale la geey doono waxay ku tusay si qaabkii u dhiiri gelinayaan dhalinyarada una maray habaabinayaan uga adeeganayaan maaragtay hankii iyo dawladnimadii Soomaaliya way marka ugu dambeyn aad fiiriso ciidanka nin xun iyo nin wanaagsanba ciidan waa ciidan waxa haga waa siyaasaddaas cid joogta haday tahay dad sharci ilaalisana ciidanka sharcigu ilaalinaya haday yihiin dad mataqaanaa sharci ilaalina ciidanka sharci ma ilaalinayo marka mushkiladda go'aan siyaasadeed baa meeshan ka dhacay
oo hadday noqoto madaxweynaha hadday noqoto ra'iisul wasaaraha hadday noqoto taliya nabad sugidda mas'uuliyadda rasmiga ah ee arrintan dadkii wada lahaa ayaa maanta qaar dambiilayaal yihiin qaarna loo haystaa inay dembiga galeen tusaale xasan cali khayre wuxuu ka mid yahay dadka maanta aan waxba loo haysan falkaana ra'iisul wasaare ahaa markii dembigaas dhacay sidaan daaya kuu sheegay xasan cali khayre iyo saadaq joon aniga isku meel ii jooga xasan cali khayre iyo fahad iyo farmaajo isku meel ii jooga waxaan aaminsanahay waalidiintii dhibaatadan u gaartay inay u joogaan waa run xisbiga wadajir iyo xasan cali khayre madaxweyne cabdiraxmaan shukuur iyo xasan cali khayre heshiis baa dhex maray sidaad arkaysay waxbayna isla gaareen waa mid ayaga u qaasa waa midaan aniga i qusaynin waa midaan waalidiinta ilmaha laga laayo qusaynin waa midaan qusaynin dadkii kale oo meeshaas lagu dili rabay ama habeenkaas joogay maalintay noqoto bay noqonaysaa maxay ka heshiyeen marka sida aan qiyaasayo inay de iska kaashtaan siyaasadda see siyaasadda isaga kaashan karaan isku mabdaaba ma noqon karaane waa su-aal aan is leeyahay in cabdishakuur in la weydiiyaa saxa waay xasan cali khayre in la weydiiyana waa sax haddii marka xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ay is saamaxeen oo ay leeyihiin isku mucaaradaan wada nahay mabaadi'da lagaga duwan yahay farmaajo maxay tahay waxaa weeyaan waxaad arki jirtay nin mucaarada oo shalay nimuu la dagaalamayay dhinaca kale soo mara maanta inuu la dagaalo dana diyaar u ah xasan cali khayre iyo farmaajo shalay isku tiim ay ahaayeen maantana sida ay muujinayaan waa laba gurubay ku kala jiraan inkastoo dadka qaarkood ay qabaan xasan cali khayre inuu weli iyo isaga iyo isku xiran yihiin dadka filada Soomaaliya u adeegtay dawladda Qatar oo aan aaminsanahay inay tahay adeega dad in fact waxaan aaminsanahay aniga Fahad Yaasiin iyo waxaan oo dhan waa adeegayaal waa agents u adeega dawladda Qatar raadkeedii baa muuqdo cagaheedii baa muuqdo saamaheedii baa muuqdo marka waxaan is leeyahay xasan cali khayre kama marna meeshaas weli ma maqna laakiin waa mid aniga iyo gaara maalin bayna soo bixi doontaa marka in farmaajo maanta mucaarad lagu wada yahay mucaaradkina xasan cali khayre ay isku mabaadin yihiin sida muuqata saf iskula jiraan sometimes waa dhacdaa maxay sawir bixinaysaa sometimes waxaa dhacdo dadka soo necab tihiin inaad qola iskala sii necabtiin asdaas la gashaan goobaha dagaalka ka dhacda siyaasadda ka dhacda marka waa iska nooc caadi yani lama yaabani in la isu kaashto qawadka filmaantan masaaricada hadda taqaan qofkii meesha ku soo qof kasta meesha laga saara lagu qasban yahay qofkii ku soo haraa guuleystay marka waxay sameeyaan ayagoo isdilaya qofka ugu xoogga badan isla qabtaan banaanka u tuuraan qofka markii ringiga laga saaranay kuma soo noqon karo marka waxa laga yaabaa in hadda loo arko farmaajo in la isla qabto meesha laga wada tuuro si hadhow haddii la isu soo noqdaba la ku soo noqday marka waxaan isleeyahay iskaashi noocaas oo baa jira maahane wixii kale oo ka heshiiyeen anigu ma ogi laakiin xasan cali khayre aniga iyo Fahad iyo farmaajo isku meel ay joogaan dad badan laga yaabaa inay su'aasha is weydiinayaan aan rabay inaan ku weydiiyo haddii khayre uu mucaarad yahay mucaaradkina ay khayre la fadhiyaan oo ay shinsanayaan ay garab ka dhiganayaan farmaajona la mucaaradayo maxaa laga duulayaa maxaase lagu duulayaa طبعا waxa loo duulaya wax laga duulaya wax iska cad waxay tahay farmaajo waa madaxweynihii wadanka soo maray walina madax furasho u haystaa kursiga Soomaaliya dab iyo diin wixii lagu dayabane wax kasta oo lagu dabaybi kara lagu dayayaa ninka in la isu kaashto xasan cali khayre sida uu sheegay murashax madaxweyne nimankan kale isii joogaan murashaxin madaxweyne in la isu kaashto la isu kaalmaysto oo de ninkii orodku roon iyo ninkii maarta aqrisku roon ba alla iyo awrtiiba naqli jiray in de wax kasto ninkaas oo madaxtooyada ka soo baxo waxa uu haystana Soomaaliya la soo dhex dhigo loo tartamo oo de ma qolo ku guuleysato waxaan is leeyahay waa fursad taalo farmaajo haddii laga adkaado doorasho ay dhacdo xasan cali khayre madaxweyne noqdo maxaa laga filan karaa farmaajo wax ka xun inuu farmaajo ka xun yahay amsan marka maxaa marka loo halgamaya asaga halgamaya lama halgamaya asaga cid garab siinaysa asaga tartiisa u socda inuu madaxweyne noqdo rabo laakiin waxaan aamsanahay xasan cali khayre waa ka xun yahay farmaajo ugu dambeyn arrimahay dhacay markaad fiiriso nin ciidan ka mid ah tahay aqoon u leh arrimaha sirdoonka iyo ciidanka Soomaaliya falalka ay geysteen intii hadda uu Fahad taliyaha ka ahaa maxaad ku macnayn lahayd hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad waa burburiyay
bal waxaan isleeyahay haddii meesha laga soo qaadi doonaa aad ay u adag tahay in dib loo soo nooleeyo aad ay u adag tahay laanno dhilqaha ku dhex jira iyo xasharaadka ku dhex abuurmaya shabaab iyo waxa kale iyo eritrea oo maantadan aan kula hadlayo in saraakiil eritrean ragga maxaakiimta waageeda xamar joogay ragga shabaabka tababari jiro dawladda Sheekh Shariif shabaab tababaraya ayaa maanta ku sugan xarunta nabad sugidda Hawar Qadiijo aan kula hadlayo airportka magaalada Muqdisho jooga saraakiil ay soo direen waana siday ula dhaqmeen dawladda Ethiopia markay Eritrea heshiiyeen hal mar ay ku soo yaaceen Ethiopia nabad sugiddeedii faylasho dhan bay dhex galeen dilqa amal ay u dhex jiraan maanta xamar ay ka arriminayaan Soomaalida garan marka nabad sugid Soomaaliya waxay u baahan tahay wax badan laga xalliyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaan Yuusuf Guuleed ayuu ahaa oo barnaamijkan marti noogu ahaa intaynu mar kale kulmi doono hadduu Allah awood u ogolaado waxaan ku dhaafaynaa nabad gala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkani waa ha noolaato ku soo dhawow facebookeena oo like saar ama follow dheh si aad ula socoto mar walba wararka warbixinada iyo sheekooyinka ku saabsan nolosha Soomaalida mahadsanid ha noolaato